sheekooyin iyo qisooyin, challenge iyo pranks, vlogyaal iyo qosol, news, taqwa Soomaaliya channel. هموغان نلسو حرير انستغرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انتي ونسلام دادك كوحيران channel التقوى الصومالية channel. هدا كمتها فملك التقوى الصومالية channel لايك شير صار ونصيد الأصحاب تادا كلي سيدي ايكنا نلسو قيب قلانا فميل حل فميل وين نقنو قفل بأدون كان جوكتو ابن آدم كحيوان كوحوالبو حق أوليهي iskaba dhaaf ibn aadan iyo xayawaan gurigaaga degantaa naftarkiisa xaq ugu leh nadaafadiisa inay mar walba fiirisid oo nadiifisid oo hagaajisid. laakiin ma isweydiiyay hal mar xuquuqda uu leeyahay cunuga yar maxaa waa xuquuqdiisa oo ah diinta islaamkana leh oona ah diinta islaamka. xuquuqda cunuga diinta islaamka maxaa waay xuquuqda ilmaha ولا أجارتك حقوق المه ليه ما هن كليا إلى النظيف عنقاسي إنه ألابيد وجعليها الصيو إنه وحاس نص السمايو ما هن وحوليه هاي حقوق بدن وليه هاي حدا يعني شيء هدو إلهي يراهو كل ين وأجنها إن المها وحيه نور كجوريا فرحة جوريا قفل بو ما تعنو جريز أركو أصو إسكلفون إنه قسلو لدي عنقاسي وجعليه هاي وانا ربا فالمها سبحان الله بريئين واي لنا أول بها هذا عنق مسلم عنق قال حتى أركتد عنقاسي ملائكي رواي أو بريئه هو دم باللحين ما أنتو حك هدلين هدو إلهي راهو حاواي حقوق ذا عنق ير وليهي تاسم حاواي حقق أغوين أون أغهري حاواي عنق إنو عنق نصب له يهي oo maxaa lagu wada cunug nasab lahayaa ma ahan ma ka wadi qabiil hebel inuu cunugaas ahaado ama qabiil hebel inuu ahaado ma ahan cunug nasab leh inuu yahay waxa ka wada cunug hooy aaba xalaal isku qaba iska dhaleen ma ahan cunug xaraan lagu dhalay ilmaha xalaash lagu dhalay ana cunuga xaq oo leeyahay maanta inuu hooy aabo xalaal isku qabaan inay iska dhaleen cunugaas inuu nasabkiisa yahay xaq oo leeyahay oo nasabkaasi waraaca ilaa noloshiisa damba horta taas waxa inuu cunuga nasabkiisa nasab xalaal uu yahay. kan labaad xuquuqda leeyahay cunuga waxa waaye cunuga inuu la noolaado hooyadiisa iyo aabihiisa mar walba ee xanaan tusaan farxad tusaan wax walba xataa hooyada aabaada isku kacsan yihiin dhinac duruufadeed ama dhinac kasta inay u muujiyaan cunuga maahan qaylo agtiisa ku qayliyaan agtiisa ku buuqaan cunugaas maahan laana dambiyo asaga leeyahay male xuquuqdiisana ka mid tahay inuu mar walba familkiisa faraxsan la noolaado. حقي صدحادو عنوغ ليا وحاواي إنو عنوغ لو دافو نولاشيسا لسيا ساعة ما عنوغ نولاشيسا لسيا هورتو قفت ابن آدم نولاشيسا من ديب قف ابن آدم نولال من ديب تلاكي وحاكا وذا عنوغ إنو نولال ليا هاي حدي هويد آبها مثلا إسقبان awoodin maanta inay cunug dhalaan aan bis kala duruuftooda saamixi weysanay uur yeeshato naagta oo la samaxa la uur yeelatay ma ahan xaq inay cunugaasi iska soo rido xaq wuxuu yahay inuu cunugaasi noolaado lana irsaqiis ilaahay subxaanahu wa ta'aala iska leh aana biilaayo fa sidoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo u ballan qaado inuu qofkii ruux cunugeed dilo inuu naarta jahannama galaayo fa cunuga nolosha xaq uu leeyahay لأن إلهها كوغو أبوري إلهنا هدو كوغو أبوري طبعا إرزقيسنا إلهها هاي سبحانه وتعالى حق كلي أو ليه عنوغ وحاوا إني عنوغ لسنتيد ولاليهيسا إني عنوغاغ لسنتيد مروال بولاليهيسا إيا عرورتا كلي سي عمل ما أهن ما انتا هورتكو إله سبحانه وتعالى وما يويلش إي قبلحبو ما أهن ما أنت حتى أذيك ربت جبر إني دشيد عمل إني جبر دشيد أو ويل دشيد ما أهن ويل كاجا إني يستيد عمل أم بس كالحقوق لما تجبرها سياسد أو سياسد ويل كا سيدا كلنا حدا ربت ما أنت إنه ويل كو دشوا oo ku dhalawaay gabdho ku dhashaan ma ahan inay
gabdhahaada yastid falabadoodaba ilaah subxaana watacaala uume. xaqiga kale oo cunuga iska leeyahay waxaa waaye inay cunuga wax la baro, yaraantiisa ha lagu barbaariyo cunugaaga inay wax bartid oo ah diintiisa inuu barto, dhaqanka inuu barto. hadii dhaqanka qofka leeyahay ibni aadanka leeyahay sida anaka Soomaaliya ama cunugeena inay barno hadii dhaqanka wax walbo iyo inay barno waxaas dhan ka muhiimsan diinta islaamka. cunuga gabdhaha iyo wiilashaba labadaba inay la baro hadii ay dhaqanka la baro ama iyo la baro diinta islaamka, yacni caalamka sida ugu mid noqdaan birtole. kalena waxaa waaye inuu cunuga ku ciyaaro ciyaarta shareecada baneysay. maxaa waa ciyaarta shareecada baneysay? ciyaarta shareecada baneysay waxaa waaye inay cunugaaga matalan maanta inay dabaal bartid, waxaa waa maanta inay farasta bartid, farasta inuu koro inay bartid, waxaa waa maanta inuu waxyaalo basiit guriga oo kuba bartid. ma aha laazim inay oo iPad iyo laptop ama inta u dhiibtay ama oo hakaa mashquul ama cunugaaga u dhiibtido heesahaas iyo waxaas dhan ku xafdiye maahan. waa qalad. aniga waa ku arkaa dad badan aan ku arkay oo cunumaha saas u barbaarinayo, laakiin qalad oo kusii barbaarinayo cunugaasi maanta. laana cunuga waxaa waa koobi, adoo waxa ada samaysid kaa koobi gareynaya cunugaaga. fa waxaa fiican mar walba inay cunugaa hadaa u dhiibaysid laptop ama hadaa u dhiibaysid iPad, u dhiib qur'aan ha ka dhageysto, u dhiib qisaska ilmaha atfaalka oo inuu ka fiirsado. ha u dhiibin inuu heesaha ka dhageysto oo ilmaha heesooyinka ilmaha iyo heesooyinka oo caruurtii waxaas inuu ka dhageysto. u dhiibin mar walba inuu waxaa barta cunugaaga min yaraantiisa inuu ku barbaariso diinta, sidoo hadhowtii markuu weynaado. طبعا markaa yeelaayo cunuga haduu weynaado 10 sano 11 sano haduu gaaro 7 sano horta kor u dhaafo, markaa yeelaayo maanta kaala aabo amba hooyo cunugayga faatixada ugu bara camal markaa yeelaayo iyo dhibeena kugu naqayna. markaasi mana dhihi karto cunugayga dhaqan celisaa geena iyo waxaas. leesh laana cunug waxaa fiican yaraantiisa markaa aragto cunugaaga hadalkiisa oo bilaaw yahay, waxaa fiican inaa oo hadaa u dhiibaysid iPad amba laptop amba anything oo rabtid adi inuu ku dheelo, waxaa fiican mar walba inay heesa ka daysido qur'aan u shidid, sidoo qur'aanka sidoo u dhageysanay afkiisa ugu qabto. qisaska oo saxaabada oo waxaa jiro oo caruurta oo sida maskaxdiisa camal basiid oo qaba karto, sida qisaskaas ugu geesid, sida ugu barbaarisid min yaraantiisa hadhowtii ku dhibaysa markuu weynaado inay diinta si fiican ugu sii ballaarisid. xaqiga kale cunuga leeyahay waxaa waaye inay cunugaaga ku tarbiyeysid inuu akhlaaq wanaagsan, akhlaaqdiisa wanaajisid. sida cunuga haduu cunugaaga yahay cunug madax adag inay adna sii madax adkaanin oo sii dililni. ana cunuga kulma adiga sii dilaysid kulmo madaxiisa sii adkaanayo ma ahan. haduu cunugaaga inuu aragtid inuu madax adag yahay camal inay mar walba oo fursad siisid wuxuu rabiyo markaas inuu u daysid, laakiin biritool camal ka jirtid. laakiin step by step tartiib ha akhlaaqdiisa horta ko inay cunugaaga mar walba wanaajisid. min yaraantiisana oo magacaha fiican camal oo shiikha tahay caalima tahay markaas min yaraantiisaba kusii barbaarisid, sida uu ogaado akhlaaqda shayuukhda hadhowta shayuukh caalimiinta dadkaasi camal akhlaaqooda sida uu ogaado min yaraantiisa inay sii bartid. waxaas anna waxaa ka muhiimsan kulligood horta waa wada muhiim, laakiin waxaas dhanka wada fiican ridaacada inay ilmaha cunuga naas kala nuujinayo, inuu naas nuujiskiisa 2 sano xadka diinta islaamka sheegta 2 sano inuu oo qaato, sidoo maskaxdiisa jirkiisa wixiisa dhan manaacadiisa jirka oo ugu wada fiicnaado, oona aabahana ku biilo hooyada markay cunuga naas ka nuujinayso haduu awoodo. ka masruuftid dhinac walbo oo yahay sida cuntadiisa, wuxuu cabayo, wuxuu gashanayo, tacliintiisa, waxbarashadiisa, waxaas dhan ka masruuftid oo ka biishid waaye. cunuga haduu yahay xaqiyan kale oo leeyahay haduu yahay cunug agoon ah inuu lacagto cunuga leeyahay lagu ciyaarin oo lacagtiisa meel loo dhigo ilaa oo ka weynaado cunugaasi. lacagtiis inay meel u dhigtid sidoo markuu weynaado lacagtiis asa u maamusho, lacagta cunuga laga qaadanin.
iyo mar walba xuquuqda kale waxaa waaye siduu ugu qeybsado amba akhlaaqdiisana tan ee gale siduu akhlaaqdiisana isagana u wanaagsanaado. mar walba inay cunugaaga tustid ilmaha agoonta ee sida dadka loogu tacaamulo siduu biritooda isagana si fiican ugu tacaamulo, laakiin qalbiga inay ku barin ambiskale qabyaalad iyo waxaas camal cunugaaga inay ku barbaarin mar walbo. qabiilkooya xataa ما يحتاج إنه أشيكتد، أهم شيء إنه نصب يهاي إنه حلال كل شيء إنه دين مسلم وطو تاسائه تاسا وده مهم سن. لازم ما أهان هاي أذي قبيل هبلات هاي عمل قف كاسي قبيل هبل واهلا هدلين عمل أم بسكلا ما أنت عمل هذا أذي إيو قف إصدقاشين عمل إنمها كعشاني يصيد عمل أم بأي كان السلامين أم وحاس عمل قلط واي دنبيا ندتك ويوين كتحي. فعنقو حافي عمرول بإني أخلاق في عن لبرو حتى هدي قف هو يدك إحنا سنتا قف كله horta 3 beri ka badan qofka musna inay kala xanaaqaan horta kuma fiicna, laakiin la samax Allah hooyada hadii qof kale ka xanaaqsan tahay ilmaheeda meesha inay soo gelin ilmaha isku tagaan isla baashaalaan isla joogaan lana ilmaha dambi ma lahan. sidee rasuulka kaleey salaatu salaam ugu tacaamulkiisa ilmaha si uu uga karnaa wax yaro aan sheega haduu Ilaahay yiraaho. waxaa jiro mawaaqif badan oo rasuulka asaasan laga soo wariyay oo ilmaha oo jeclaay oo mar walbo raxiim ku ahaay raxmad badnaay yaa jireen. maalin maalmaha kamid ah rasuulka alayhi salaatu salaam dad badan soo agmaray waxaan la socdeen xasan iyo xuseen ilmaha uu u yahay. markaas rasuulka alayhi salaam wuu sujuuday, marka sujuudiyo ku daahay zaid uu daahay. markuu salaada dhameeyay saxaabaha weydiiyay yani rasuulullah yani maxaa sujuuda saan ugu daahday. rasuulka alayhi salaam wuxuu u dhahayay cunuga awoowaha uu yahay duudka ka saarnaa markuu sujuudayay. marka duudka markuu ka saarnaa markuu sujuudayay marabin rasuulka alayhi salaam inuu kiciyo wuxuu sugay intuu cunuga ka dago raxmada fiiri. فرسولك عليه الصلاة والسلام وحاد هاي إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رحمة في ما يعني بصدق رحيم وهاي. رسولك عليه الصلاة والسلام قد يسنو إلى أنا قد قلت إلهي راهم أن أنت سيريس رومات إنني لسوى ذاك أو أنا لما أنتنا قفك عرور له أقول لك أنت عرور تيدا قفك عرور هنا إله سبحانه وتعالى مركوسي سيدا وقاته sida uu dhaqmi doonto ilmaheeda haduu Ilaahay yiraaho. kuwa awlaadooda iyo iyaga naftirkooda awlaada ku sugan naftooda ku tarbiyeeya taqwada Ilaahay naga wada dhigana maanteena. waxaan leeyahay soonka Allah naga wada aqbal dhamaanteena. waana mahadsantii inta fiirsatay siina faafi sida walaalaheen dhan wada gaar insha Allah taala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.